gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleebaan Duxul Labsalax oo hadal soo dhaweynay halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Sweden uu socdaalka kooxdana ka mid yahay shirkadda filimada iyo musiga samaysa ee dalka Sweden oo mulkiilaheeda iyo wafdigu hogaaminaya ay socdaal ku yimaadeen caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaana uu xusay in nabadgelyada iskaashiga wadajirka iyo dimuqraadiyadda Somaliland ka jirta ay horseed u noqotay in cid kastaba ay Somaliland timaado. waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka kooxda xidigaha geeska in maanta magaalada Hargeysa aan ku soo dhaweyno saaxiibkii Foosi iyo maxay groupkan la socda uu reego kamid yahay waa nin reer Sweden oo musician isla marhaantaana leh shirkadda filimada iyo muusiga Elena Tobas waxay muujinaysaa awoodda fankeenu halkuu marayo. geesta kalena mulkiilaha shirkadda samaynta filimada iyo muusiga ee dalkaasi Sweden ayaa isaguna hadal kooban halkaasi ka jeediyay. My name is Rigo. My real name is Rodrigo Penchev. I'm based in Sweden. I do music production. My company Topaz make music videos. Yeni Kina Rodrigo waa markii ugu horeysay yimaadeen Afrika nasiib aynu harnay inay hal Somaliland Hargeysa yimaadaan waa farxad igu weyn aniga khaas ahaan Rodrigo Penchev wuxuu halkan u yimi wada shaqayn inuu xidigaha geeska la yeesho oo musiiga casriga ah si adduunka loo iibiyo.